السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوتيوب channel ka daawana sawaaqays qisar ku soo dhawaada dilaana maanta oo maalin cusub iyo muuqaal cusub ma sha Allah dhinacayga waxa taagan Sheekh Aadan waxa weeyaan wax halkan aan ku suganahay waa halkee Aadan waxa weeyaan waa masjidkii nabigeena sallallahu alayhi wa sallam oo aynu ku sugannahay barxadiisii ama banaankiisii gudahana aynu geli doono insha Allah taala insha Allah halkan aan joogno waxa weey halkaas aad arkaysaan waa waxa loogu talagalay in laga cabo waa biyihi samsamka laguna weysaysto biyi samsamka baan ku soo weysaystay imka ma sha Allah waxa weey xaramku waa qabow weey ma sha Allah tabaaraka rahmaan halkan waxa naharinaya daladihii loogu talagalay in ay hariyaan dadka halkan ku sugan sidoo kale ka ilaaliyaan cadceeda ka ilaaliyaan roobka iyo biyaha xagga sare ka imanaya daladahan waxa la sameeyay 2010kii waxa amray malik Abdullah bin Abdul Aziz oo ah boqorkii ka horeeyay boqorka hadda jooga ee Salmaan daladahan runtii waxa raacsan tuumbooyin waxay qaboojinayaan oo ay sii deynayaan biyo cidii aragtay ma sha Allah waxa ku yaala 250 xabbo ayaa ku yaala masjidka nabigeena oo afarta jihaba ka xiga ma sha Allah waxa weey halka aan dhex marayo waa masaajidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yaala Madiina waxa weeyaan aad iyo aad baa loo balaariyay masaajidka wuxuu qaadayaa kumanaan kun oo qof hal mar oo kaliya waxa weey masaajidku guduhu ku yaala laakiin waxa weey barxadan weyn waxa loogu talagalay markuu masaajidku buuxsano in dadku waxa weey ku tukadaan oo maaragtay codkana kor baa loo qaadaa Sheekh Aadan maxaa inta ku daraysaa waxaan ku darayaa hadda waxaan ka gelaynaa albaabka ama bawaabatu Quba ee la yiraahdo oo aan gudaha u gelayno masaajidka nabigeena sallallahu alayhi wasallam hadda barxadii baan joognay haddana gudaha ma socono ma sha Allah waxa weeyaan meeshan waa meeshii ugu qiimaha badnayd ee waxa weeye aan booqdo ma sha Allah dhulkan waa dhulkii barakeysnaa dhulkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabuhu waxa weeye ay ku noolaan jireen ayaanu maanta waxa weeye aniga Sheekh Aadan ba aanu maraynaa muuqaalka soo kale waxaan ugu helnay dhaqtariyo waxa weeye iyo xariir waxa weeye iyaguna halkaas ay joogaan waxa weeye ma sha Allah hadda salaadii casr baa loo diyaar garoobayaa salaadii casr inta ka dhiman waxa ka dhiman 20 mir 20 mir baa ka dhiman kadib waxa weeyaan salaada casr markaanu gudano insha Allah si fiican baan idinku dalxiisin doonaa masaajidka biidnillaahi tacaala sidoo kale waxa weeye halkan waxa lagu diyaariyay afurkii ma sha Allah halkan waxa lagu diyaariyaa afur aad u tiro badan oo loogu talagalay dadka masjidkan ku sugan inay cunaan guud ahaan wadankan meelaha masaajidda meelaha dadku isugu yimaadaan bisha Ramadaan inta lagu guda jiro afurku waa bilaash dad sama falayaal ku deeq ma sha Allah waxa weeyaan afur nooc walba leh haday biyihii tahay haday timirtii tahay haday waxa weeye horta caanahan yogorka baan aad ugu afuray maalmahan aniga aadanba sadarkiisan halkan aan soo gaarnay waxa weeyaan waa qubuurihii ay ku asnaayeen asxaabtii rasuulku sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhum ilaahay ha wada naxariista dhamaantood waxa weeyaan dadkan oo dhan waxay eegayaan oo ay daawanayaan qubuurahan waxa weeyaan assalaamu calaykum ya asxaab alqubuur xabaalahan walaalayaal waxa la dhahaa baqiic al-gharqad waa xabaalaha ku dhinac yaala masjidka nabigeena sallallahu alayhi wasallam xabaalahan waxa ku aasan saxaabo aad u tiro badan oo kamid yahay Uthman ibn Affan oo kamid yahay waxa weeyaan Jaafar kamid yahay Hasan oo waxa kamid ah Ali ibn Abi Talib hooyadii waa saxaabada intooda badan halkana waxa weeyaan lagu aasay xabaalahani had ma buuxsamaan laga soo bilaabo waqtigii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu noolaa ilaa maanta waxba lagu aasaa waa intee waa 1444 sano baa wax lagu aasaya nabiga sallallahu alayhi wasallam xabaalahan waa imanayay waa soo booqanayay waa ku noqnoqonayay waana u ducaynayay wuxuuna oranayay nabiga sallallahu alayhi wasallam assalaamu alaykum daara qawmin mu'miniin wa ataakum ma tu'adun gadan mu'ajjalun wa inna insha Allah bikum laahiqun allahumma ighfir li ahli baqi'in al-gharqad wa u ducaynayay nabiga sallallahu alayhi wasallam halka imkaan soo gaarnay sadarkiisan waxa ku qoran waa museumkii nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa weeyaan taariikhdii iyo waxa weeyaan waxyaabihii ma garanaysaa kabihii nabiga waxyaabihii nabiga iyo asxaabtiisa ka hadhay ayaa halkan yaala marka waxa halkaas lagu kaydiyay guduhu ma furna oo waxa weeyaan waa naloo furi waayay laakiin waxa weeye dusha baa laga daawan karayaa maadaama ay maanta aad iyo aad u tiro badan yihiin
masjidu qubaa markii hore wuxuu ahaa oo halkan ku yaalay ceelkaasoo dadku ay ku cabbi jireen sidoo kale waxaa ka ag dhowaa guryo oo waxaa deganaa halkaas dad kadib ceelkii magaciisii baa waxaa loogu magac daray magaaladii ama bulshadii meeshaas deganay dadkii reer qubaa ee deganaa deegaankan isaga ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku ammaanay inay yihiin dad nadaafadda iyo isdaahirinta jecel qalbiyadoodii bay daahiriyeen oo shirki bay ka daahiriyeen jidhkoodana waxay ka daahirinayeen nijaaso walba oo dadka kale marka ay xaajo gutaan waxay isticmaalayeen dhagaxaanta oo keliya laakiinse iyagu dhagaxaan bay isticmaalayeen kadib bay biyo ka dabageynayeen waata ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa uu ku tilmaamay fiihi rijaalun yuxibbuuna an yatadahharuu wallaahu yuxibbu almutahhiriin waxaa ku sugan rag jecel tahaarada iyo inay isdaahiriyaan ilaahayna waa jecel yahay kuwa isdaahirinta badan abu hurayra wuxuu leeyahay waxay aayaddu ka hadlaysaa dadkii reer quba nabigeennu sala allahu calayhi wasallam markuu halkan soo gaadhay ama goobtan uu yimi wuxuu degay guriga kalthuum ibnu hadim oo saxaabada ka mid ahaa sidoo kale wuxuu dadka ku qaabili jiray guriga sacad ibni khaythama oo isagu nin dooba ahaa markaa oo xaas aan u joogin maadaama dad badan nabiga sala allahu calayhi wasallam ay soo booqanayaan mudduu joogay nebigu sala allahu calayhi wasallam halkan muddadaa uu joogay waa muddada uu dhisay masjidkan aad u jeedaan hadda masjidkan qubaa waa masjidkii ugu horreeyey oo islaamnimada dhexdiisa la aasaaso yacni nebiga sala allahu calayh wasallam markii la soo saaray masjidkii ugu horreeyey ee la aasaaso waa masjid qubaa ما شاء الله beertan gadaashayda ama xagga dambe iga xigta waxa la dhahaa almustadil ama waxa ku dhex yaala bi'ru cidqin qisadeedu waxay tahay nabigeena sallallahu alayhi wasallam markuu Maka ka soo baxay oo ka soo hijrooday intuusan magaalada Madiina soo gaarin ama booskan aynu ku sugannahay oo masjid Qubaana dhinaciisa uu ku yaalo saxaabadii aagan deganayd nabiga jacayl ay u hayaan iyo hilow ay u hayaan ayay maalin walba waxay korayeen geedaha timirta si ay nabiga iyo Abu Bakar u arkaan oo u soo dhaweeyaan dhowr cishay sidaas sameeyeen way arki waayeen maalinkii dambe nabigu markuu halkan ku soo aadanaa nin yahuudiya ayaa arkay meel dheer ka arkay dabeetana uu ishayn waayay oo kor buu u dhawaaqo wuxuu yiri kaad sugayseen waa kan waa soo gaaray saxaabadu aad bay u farxeen wajiyadooda laga arkay nashiidooyin bay qaadeen ay ka mid tahay nashiidada macruufka ee caanka ah طلع البدر علينا يعني نشيدooyin kala duwan bay qaadeen markuu nabigu sallallahu alayhi wasallam yimi beerta iyo ceelka ku dhex yaala ceelkii waa ka cabay beertiina geed kamid oo harsaday kadibna harkii baa ka wareegay oo cadceedii baa nabiga qabatay Abu Bakar oo la socday ayaa wuxuu sameeyay go'isii sare intuu qaaday buu nabiga sallallahu alayhi wasallam had uga dhigay ixtiraam iyo weynayn uu weynaynayo dadku markii hore may kala garanayeen nabiga iyo Abu Bakar waayo waana isku dhawaayeen nabiga oo ka weynaa Abu Bakar baabad waxad moodaysay inuu ka daayar yahay oo Abu Bakar uu weyn yahay waxay moodayeen dadka qaar kamid inuu Abu Bakar nabigii yahay laakiin waxay ku garteen ficilka Abu Bakar uu sameeyay oo ah inuu hariyo nabiga sallallahu alayhi wasallam ma sha Allah tabaaraka arrahmaan hadda wadadan iga dambaysa ee aad arkaysaan waa halkii nabigeenu sallallahu alayhi wasallam dariiqa ama jidka u ahayd oo marka uu aadayo xagga iyo Madiina iyo masjidkiisa uu sii marayay soona marayay marka uu imanayo waxa weeyaan masjid Qubaana saynu soo sheegnay sabti walba waa imanayay raakiban aw maashiyan isagoo gaadiid korsan ama lugaynaya wuxuu soo marayay nabigu sallallahu alayhi wasallam wadadan aad u jeedaan oo ahayd dariiqii uu nabigu raacay saaxiibayaal cilmi badan iyo dalxiis badan kadib ma sha Allah muuqaalka halkan ma ku soo xidhi doona maxaa leedahay sheekh ma sha Allah waxaan leenahay
tan ma aha tii ugu dambeysay waxaa soo socda xalqado badan oo xiiso leh la soco insha allah إن شاء الله بإذن الله مقال كان يدوك سوق على لايك سبسكرايب شير كلام من دوقة أصحابك وحنا قيس قيصر يا شيخ آذن وحويا آد بايدي سلامنا تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال